Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada qaybteennii labaad aynu kaga hadlaynay taariikhdii Suldaan Suleymaan Alqaanuuni kaasi oo ahaa boqor ka mid ahaa boqorradii dowladda Cusmaaniyiinta xukumayayna dowladdaasi 46 sannadood. maanta waxaynu barnaamijkeena ku falanqayn doonaa qaybihii dambe ee kacdoonnadii ku dhacay Suleymaan Alqaanuuni iyo sida uu uga takhalusay iyo weliba taariikh nololeedkiisa qaybihii dambe ilaa dhimashadiisii. haddaba si aad uga mid noqoto dadka joogtada u ah channelkan fadlan subscribe dheh. kacdoonkii labaadna waxaa sameeyey nin lagu magacaabi jiray Axmed Shaah kaasi oo weligiiba jeclaa in loo dhiibo xilka lagu magacaabo Sadrul Acdam oo ahaa xilka ugu sarreeya ee uu qof ka qabto dowladda Cusmaaniyiinta, wuxuuna hadda xilkaasi u dhigmaa ra'iisul wasaare, laakiin kumuu guulaysanin xilkaasi inuu qabto oo loo doorto. wuxuuna codsaday in loo doorto guddoomiyaha Masar. markuu Masar tagayna wuxuu isku dayay inuu dhinaciisa u soo jeediyo, wuxuuna naftiisa u doortay boqor gooni ah oo ka mid ah boqortooyooyinkii Cusmaaniyiinta, laakiin dadkii cilmiga lahaa iyo ciidamadii dowladda Cusmaaniyiinta ma aysan aqbalin ee way dileen. kacdoonkii saddexaad iyo kii afraadna waxaa sameeyey hogaamiyayaal Shiico ahaa kuwaasi oo iyaguna maray waddadii ay mareen kuwii ka horreeyey. kadib markii uu dhammaaday dagaalkii uu Suleymaan la galay kacdoonnadaasi, wuxuu bilaabay qorshe uu ku yegleelayo dowlad ka awood iyo cudud weyn tii uu ka dhexlay aabihii, wuxuuna jideeyey qawaaniin iyo go'aamo cusub oo uu sal uga dhigay ilaalinta kala dambeynta iyo haybadda dowladda Cusmaaniyiinta. qawaaniinta badan uu jideeyey Suleymaan darteedna waxaa loogu magacdaray Suleymaan Alqaanuuni. kacdoonkii saddexaad iyo kii afraadna waxaa sameeyey hogaamiyayaal Shiico ahaa kuwaasi oo iyaguna maray waddadii ay mareen kuwii ka horreeyey. kadib markii uu dhammaaday dagaalkii uu Suleymaan la galay kacdoonnadaasi, wuxuu bilaabay qorshe uu ku yegleelayo dowlad ka awood iyo cudud weyn tii uu ka dhexlay aabihii, wuxuuna jideeyey qawaaniin iyo go'aamo cusub oo uu sal uga dhigay ilaalinta kala dambeynta iyo haybadda dowladda Cusmaaniyiinta. qawaaniinta badan uu jideeyey Suleymaan darteedna waxaa loogu magacdaray Suleymaan Alqaanuuni. ugu dambeyntiina Suldaan Suleymaan wuxuu dhintay sanadii 1566 isagoo jooga magaalada Siktora oo uu xilligaasi rabay inuu furto go'doonna ay ku hayeen ciidamadiisu, wuxuuna ka tegay mid ka mid ah dowladihii ugu baaxadda iyo haybadda weyneed ee uu aadamuhu yagleelo dunida.